sheeyadii uu isticmaali jiray Nabi Muxammed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee 1200 sano ka hor ilaa iyo hadda la hayo. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee 1200 sano ka hor in muddo ahna la kaydinayay ayay dad badan u daawasho tagaan si ay u arkaan sheeyadii uu isticmaali jiray nabigeena Muxammed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee kuwaasi oo isugu jira dhar iyo sidoo kale agabyo kale oo isticmaali jiray nabigeena Muxammed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. wadamo kala duwan oo Sacuudiga iyo Turkiga ay ugu horeeyaan wadamo kale oo Carabeedna ay qayb ka yihiin ayaa waxa ay hayaan agab kala duwan oo qaadan jiray ama uu xiran jirayba nabigeena Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. waxaana inta badan ay yaalaan madxafyo waaweyn oo ay dadku tagaan iyagoo sheeyadaasi kala duwan lagu xafiday dhalooyin iyo waxyaabo kale si aysan dadku u qaadan iyadoo aan loo ogolayn dadku in ay qaataan iskaba dhaaf xitaa in ay taabtaan. sheeyada aadka loo ilaaliyay isla markaana la hayo waxaa ka mid ah khamiis uu lahaa nabigeena Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo in muddo la xafiday dadkuna ay in badan u daawasho tagaan. sidoo kale ashyaada la hayo waxaa qayb ka ah koofiyo uu qaadan jiray nabigeena Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kuwaas oo kala yaala madxafyo ku kala yaala Turkiga iyo Sacuudiga. sheeyada ugu badan ee ilaa iyo hadda la hayo 1200 sanana la xafidayay waxaa ka mid ah kaba uu gashan jiray nabigeena Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee seefo iyo agab kale ee xilliga uu dagaalku jiro qaadan jiray faraantigii uu gashan jiray nabigeena Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee tintii nabigeena Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee go iyo imaamad uu qaadan jiray nabigeena Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee iyo sheeye kale oo badan. shucuubta caalamka ama shucuubta muslimka ee caalamka ayaa inta badan u daawasho taga wadamada ay yaalaan madxafyada ku yaala sheeyada iyo agabyadii uu isticmaali jiray nabigeena Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.